السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كينا يفيدي جينا ما أنت درسي جيني 10 كينا وحنكشي كينا دونا conjunctions وحاواي إرياشة أو جملة ده إسكحرة وحياشة أو مهم كان كشي كينا دونا إيو سيدا لو استعماله يجملة ده example إيو مركا الاستعمالي وحياشة مهم كأو بهانتين أوقاتان هنكشي كينا دونا إن شاء الله بلاونا 10 كينا يدرسي جينا كسو دوادا. First of all waxa koobaad oo rabno inaan fahamno conjunction maxaa laga wadaa. Conjunction waxaa loo isticmaalaa marka la rabo in jumladaha la isku xiro mise erayaasha la isku xiro mise jumladaha dhaadheerka. A conjunction is a word that is used to connect words, phrases and clauses. Sidoo kale conjunctions intaasoo nooc bay leedahay. Nooca koobaad waxaa waaye addition conjunction يعني kuwa oo isku dara jumladaha. For example ka koobaad waxaa waaye and waxay la macno tahay iyo. For example I have a cat and my sister has a dog. يعني waxay la macno tahay aniga waxaan haystaa bisad walaashay waxay haysataa A iyo walaashay waxay haysataa A. mid ka labaad waxaa waaye also waxay la macno tahay iyo sidoo kale mise sidoo kale. For example she is a talented singer and also a fine actor. يعني waxaa laga wadaa way heesi kartaa iyo sidoo kale si fiican bay u jili kartaa. midka kale waxaa waaye not only but also. For example not only will they paint the outside of the house but also the inside. waxay la macno tahay ma aha oo kaliya inay rinjiyeen dibadda guriga laakiin sidoo kale gudaha. In addition our new teacher can speak 3 languages. In addition he has 6 years of experience. يعني waxaa laga wadaa macallinkeena cusub wuxuu ku hadli karaa 3 luqadood iyo waxaas wax dheer wuxuu leeyahay khibrad 6 sano ah. يعني in addition waxaa laga wadaa iyo waxaas wax dheer. In addition to waxay la socotaa markasta isim magac bay la socotaa. For example Fernando can speak English and French in addition to Spanish. يعني Fernando wuxuu ku hadli karaa Ingiriisi iyo Faransiis marka lagu daro Isbaanishka. Conjunctionka kale waxaa waaye additionally. Our new house is so close to the city center. Additionally, it has 4 large bedrooms. يعني waxaa laga wadaa gurigeena cusub wuxuu u dhow yahay bartamaha magaalada. waxa intaa dheer wuxuu leeyahay 4 qol jiif oo weyn. يعني additionally waxaa loo isticmaala marka rabtid inaad tiraahdo waxaas wax intaas dheer mise waxaas waxa ku ziyaada ah marka jumladaha rabtid inaad isku xirtid. Conjunctionka kale waxaa waaye moreover. The rent is reasonable. Moreover, the location is perfect. يعني waxaa laga wadaa kirada waa mid macquul ah. sidoo kale meeshuu ku yaalo wuu fiican yahay. يعني moreover waxaa laga wadaa markaa rabtid inaad tidhaahdid sidoo kale. يعني waxay la macno tahay sidoo kale. Conjunctionkana kale waxaa waaye furthermore. For example, I don't want to go there. Furthermore, I have no time to do so. يعني waxaa laga wadaa ma doonayna halkaas aado iyo weliba ma haysto waqti sidaas ku sameeyo. Furthermore waxaa loo isticmaala marka rabtid inaad tidhaahdid iyo sida mise weliba ay la macno tahay. Furthermore he is lazy and furthermore he has no sense of responsibility. waxaa laga wadaa uu caajis badan yahay oo weliba ma laha wax mas'uuliyad ah. Conjunctionkana kale waxaa waaye besides. Besides waxaa laga wadaa ka sokow. Example-keena isla fiirino. I don't want to go. Besides I'm too tired. ma doonay inaan tago ka sokow aad baan u daalanahay.
example كان kala waxaa waaye besides working as a doctor he also writes novels in his spare time waxaa laga wadaa kasokow oo shaqaynta dhakhtar ahaanta wuxuu sidoo kale qoraa riwaayado markuu leeyahay waqti firaaqo ah hadda nooca kale isla fiirino oo conjunctionka ah waxaa waaye replacement conjunctions yacni kuwa badalaasha sheegayo la micno tahay aan isla fiirino si fiican u fahamno midka koobaad waxaa waaye or example-kana waxaa waaye or you can join me or you can stay at home ama waad igu biiri kartaa ama waxaad joogi kartaa guriga or waxay la macno tahay ama midka kale waxaa waaye or else waxaa laga wadaa haddii kale example-kan waxaa waaye hurry up or else you will be late degdeg mise haddii kale waad daahi doontaa degdeg yacni dhaqso haddii kale waad daahi doontaa example kale waxaa waaye the book must be here or else you've lost it buuggu waa inuu halkan yaala haddii kale waad lumisay midka kale waxaa waaye alternatively we could take the train or alternatively go by car waxaan raaci karnaa tareenka ama haddii kale waxaan raaci karnaa baabuur yani alternatively waxaa loo isticmaala markaa rabtid inaad tirahdid haddii kale ama haddii kale ila macno tahay example kale isla fiirino we could go to the Indian restaurant or alternatively we could try the new Italian place waxaa laga wadaa waxaan aadi karnaa makhaayadda hindida ama haddii kale waxaan tijaabin karnaa meesha cusub ee talyaaniga nooca kale waxaa waaye comparison conjunctions waxaa loo isticmaala marka rabtid waxyaata inaad isku qiyaasid mise inaad tidhaahdid way isku eg yihiin mise waa iskuma eka iyo waxaas camal la micno tahay kelimadahaas lala isticmaalay erayaashaas lala isticmaalaa aan isla fiirino midka koobaad waxaa waaye similarly waxay la micno tahay si la mid leh jumladana isla fiirino my friend works every day of the week similarly I work a lot too yani waxaa laga wadaa saaxiibkayga uu shaqeeyaa maalin kasta oo isbuuca si la mid ah anigana waa shaqeeyaa husband and wife were similarly successful in their careers yani waxaa laga wadaa ninka iyo xaaskiisa ayaa si isku mid ah ugu guuleysteen xirfadahooda iyo shaqadooda kelimada kale waxaa waaye likewise her second marriage was likewise unhappy waxaa laga wadaa guurkeeda labaad sidoo kale ma faraxsaneen yacni likewise waxaa laga wadaa sidoo kale jumlada kale isla fiirino my friends were happy and likewise I was happy too yacni saaxiibadeyda way faraxsaneed sidaasoo kale anigana waan faraxsanaa kelimada kale waxaa waaye in the same way yacni sidaasoo kaleeta iyadana la macno tahay aan isla fiirno jumladda I'm obsessed with Asian food in the same way my cousin likes it too waxaa laga wadaa waxaan aad ugu jeclahay cuntada Asia si la mid ah in adeerkay sidaasoo kaleeta u jecel yahay in the same way that ayadana waa la isticmaalo waxay la macno tahay si la mid ah sidaasoo kaleeta aan isla fiirno jumladda you must exercise your mind every day in the same way that you exercise your body waxaa laga wadaa waa inaad maskaxdaada ka jimcisaa maalin kasta si la mid ah sidaa u jimcinaysid jirkaaga riyaado u samaynaysid camal jumladda kaleeta isla fiirino you can eat kimbap in the same way that you eat sushi yani waxaad cuni kartaa kimbap si la mid ah sida aad cunaysid sushiga kelimada kale waxaa waaye just as
waxay la macno tahay sidii. Isla fiirino jumladda. She get mad just as I expected. sidii aan filayay way u xanaaqday. يعني sidaan filayay bay u xanaaqday ay la macno tahay. The house was just as she had imagined. يعني waxaa laga wadaa guriga wuxuu ahaa sidii ay moodaysay. sidii ay la macno tahay just as. Like contrast conjunctions. But yet. I wanted to go but I didn't have any money. waxaan damcay inaan aado laakiin maanan haysan wax lacag ah. laakiin ila macno tahay but. The tongue is not made of steel, yeah it cuts. waxaa loo jeedaa carabka ma aha bir, hadana uu gooyaa. hadana laakiin ila macno tahay yet. kelimada kale waxaa waaye however. however inta badan waxaa lagu isticmaalaa marka oo kitaabyasha la qorayo mise meel oo academic ah joogtid mise university schoolka waxbaa laga rabaa inaad qortid. however markasta waa la isticmaalaa. isla fiirino tusaalahan example-kan. I feel a bit tired, however I can hold it. waxaa laga wadaa waxaan dareemayaa xoogaa daal ah si kastaba ha ahaato waan ishayn karaa. yacni si kastaba ha ahaato ila macno tahay however. kelimada kale waxaa waaye in contrast. It was cold yesterday but in contrast it's very hot today. waxaa laga wadaa shalay waxay ahayd qabow laakiin sideedoo muqaabilkeedoo kaleeta maanta aaday u kulushahay jawiga. In contrast with last year's profits, the company is not doing very well. يعني waxaa laga wadaa si ka duwan faa'iidada sanadihii la soo dhaafay, shirkaddu aad uma fiicna. يعني in contrast with ma kala dhaho waxaa lala macno tahay si ka duwan. midka kale waxaa waaye on the contrary. يعني cagsigeeda ay la macno tahay. asna fiirina jumladda. It wasn't a good thing, on the contrary, it was a huge mistake. waxaa laga wadaa ma ahayn wax wanaagsan, cagsigeeda waxay ahayd khalad weyn. يعني on the contrary waxay la macno tahay cagsigeeda. jumladda kale isla fiirino. It doesn't seem ugly to me, on the contrary, I think it's rather beautiful. waxaa laga wadaa ilama muuqneen inuu foolxun yahay, cagsigeeda waxaa u maleynaya inuu qurux badnaa. يعني cagsigeeda ay la macno tahay. kelimada kale isla fiirino. Nonetheless, nevertheless. waxay la macno tahay si kastaba ha ahaato, laakiin waa kelimad formal ah oo markasta ma la isticmaalo, marmaraa la isticmaalaa. isla fiirino jumladda. There are serious problems in our country. Nevertheless, we feel this is a good time to return. يعني waxaa laga wadaa dhibaatooyin badan baa ka jira wadankeena. si kastaba ha ahaatee waxaan dareemaynaa inay tahay waqti ka habboon, waa waqti habboon inaan lagu noqdo oo loo laabado. ila macno tahay. kelimada kale waxaa waaye still. still waxay la macno tahay weli. jumladda isla fiirino. I've still got tons to do. يعني waxaa laga wadaa weli waxaan hayaa wax badan oo aan sameeyo. weli waxaan haystaa, weli waxaa ii haray wax badan inaan sameeyo. ila macno tahay. jumladda kale waxaa waaye I don't think we can stay longer but still we'll have fun. waxaa laga wadaa uma malaynaya inaan sii joogi karno waqti dheer laakiin weli waan ku raaxaysan doonaa. يعني weli si kastaba ha ahaato waan ku raaxaysan doonaa. ila macno tahay. kelimada kale waxaa waaye even so. It was raining but even so we had to go out. waxaa laga wadaa roob baa da'aya laakiin sidaas darteed waa inaan baxnaa. even so sidaas darteed. sidaas ayaa ila macno tahay. jumladda kale isla fiirino. There are a lot of spelling mistakes even so it's quite a good essay. يعني waxaa laga wadaa waxaa jira khalado badan maku sheegayay laakiin waa wuxuu ahaa qoritaan fiican. kelimada kale waxaa waaye neither nor. jumladda isla fiirino.
You neither know how to sing or how to dance. Neither you nor waxay la micno tahay midnaba. يعني you neither know how to sing nor how to dance. يعني ma taqaanin sida loo haysto iyo sida loo dheelo. Ay la micno tahay. Jumlada kale iska fiirino. I neither speak German nor understand it. يعني German kuma hadli karo mana fahmi karo. Ay la micno tahay. Conjunction-ka kale waxaa waaye on the other hand. On the other hand. waxay la micno tahay dhanka kale sida kale. Isla fiirino jumladda. I want to go to the party but on the other hand I should be studying. يعني waxaa laga wadaa waxaan rabaa inaan aado xafladda laakiin dhanka kale waa inaan wax bartaa. Sida kale waa inaan wax bartaa ila micno tahay. Conjunction-ka kale waxaa waaye even though. Even though waxay la micno tahay inkastoo. Jumladda isla fiirino. Even though our house is in a good condition, we are having problems selling it. waxaa laga wadaa inkasta oo gurigeena xaaladiisa fiican tahay laakiin dhibaato baan ku jirnaa marka iibinayno. dhibaataan qabnaa marka iibinayno ay la micno tahay. We decided to play on even though it was snowing. yani waxaa laga wadaa waxaan go'oonsanay inaan ku ciyaarno inkasta oo baraf da'ayo. Though waxaa laga wadaa inkasta asagaba. Isla fiirino jumladda. The movie wasn't very good. I enjoyed it though. Filimka aad uma fiicneen laakiin waan ka helay inkasta. waan ku baashaabay inkasta. ila micno tahay. Although asagana inkasta ila micno tahay. Jumladda isla fiirino. He failed the exam although he studied very hard. yani waxaa laga wadaa imtixaankii ku dhacay inkasta oo aad u bartay. Kelimada kale waxaa waaye despite. Despite asagana waxay la micno tahay inkasto. Isla fiirino jumladda. Despite the bad weather, we enjoyed ourselves. yani inkastoo cilimadaha mise hawada oo xumaaday laakiin waa ku raaxaysanay nafteena. jumladda kale waxaa waaye despite all our efforts to save the school, the authorities decided to close it. yani inkastoo aan dadaal badan ku bixinay inaan la xirinin iskuulka, maamulka ayaa go'oonsaday in la xiro. yani inkasta ay la micno tahay despite. Conjunction-ka kale waxaa waaye in spite of. In spite of waxay la micno tahay asagaba inkasto. In spite of the bad things he has done, I still believe in his essential goodness. yani inkastoo waxyaal badan oo xun uu sameeyey laakiin waxaan aaminsanahay inuu fiican yahay oo gudihiisa fiican yahay ay la micno tahay. jumladda kale isla fiirino. She is cheerful in spite of her illness. yani waxaa laga wadaa way faraxsan tahay inkastoo ay jiran tahay. Conjunction-ka kale waxaa waaye whereas. Whereas waxay la micno tahay halka. jumladda isla fiirino. Some people like high fat meat whereas others hate it. waxaa laga wadaa dadka qaarkood waxay jecel yihiin hilibka dufanka leh halka kuwa kalena ay neceb yihiin ay la micno tahay. jumladda kale waxaa waaye death is final whereas life is so full of possibilities. waxay la micno tahay geeridu waa kama dhammayn laakiin nolosha ayaa ka buuxda fursado badan. kelimada kale waxaa waaye while. while waxay la micno tahay halka asagaba. example-ka isla fiirino. Some people walk better to music while others do not. waxaa la micno tahay dadka qaarkiis waxay si fiican ugu shaqeeyaan muusigada halka oo kuwa kalena aysan ka shaqeynin. nooca kale waxaa waaye example reflection conjunction. midka koobaad waxaa waaye like. like waxay la micno tahay sida. isla fiirino example-ka. Many countries like Mexico and Japan have a lot of earthquakes. wadamo badan sida Mexico iyo Japan waxaa ka dhaca dhulgariir badan ee la micno tahay. nooca kale oo conjunction-ka waxaa waaye restatement conjunctions. yani marka waxyaasha jumladda rabtid inaad mar kale si kalena u sheegtid alla isticmaalaa. midka koobaad waxaa waaye that is. waxay la micno tahay yacni. isla fiirino example-ka. I'll meet you in the city. That is, I will if the trains are running. yani waxay la micno tahay waxaan kula kulmi doonaa magaalada. taasi waxaa la micno tahay waan sameyni doonaa laakiin markuu tareenka imaado.
يعني si kala rabtayna u sheegtay jumladda waxaa la isticmaalaa that is. أستفيد جملة kale I'm a dutiful student. That is, I do as I am told. يعني waxay la macno tahay waxaan ahay arday waxa waajibka sameeya taasi oo sida ay tahay waxa la ii sheegay ayaan sameeyaa. To sum up waxay la macno tahay hadaa rabo inaan soo koobo أستفيد جملة To sum up, for a healthy heart you must take regular exercise and stop smoking. يعني hadaa rabo inaan si aan u soo koobo wadnaha caafimaadkiisa waa inaad samaysaa jimicsi oo joojisaa sigaarka. In brief waxay la macno tahay asagaba hadaa rabo inaan soo koobo si kooban ay la macno tahay. أستفيد جملة In brief, I have made up my mind to quit job. Si kooban waxaan go'aansaday inaan shaqada iskaga tago. Cause conjunctions aan aadno because عشان waaye sababta ay la macno tahay. The suitcase won't lock because it is too full. يعني shanada waa xirmi weyday sababta ah aad bay u buuxsan tahay. Because of na way jirtaa. You are in here because of me. Adiga halkan baad joogtaa aniga darteyda ay la macno tahay because. As waxay la macno tahay sida. As everyone already knows each other, there is no need for introductions. waxay la macno tahay sida hadda oo qof kasta midka kala yaqaano uma baahnin in la isbaro. Kelimada kale waxaa waaye therefore waxay la macno tahay sidaas darteed. Their car was bigger and therefore more comfortable. gaarigooda wuu ka weynaa sidaas darteed wuu ka raaxays badnaa ay la macno tahay. jumlada kale waxaa waaye he was busy therefore he could not come. يعني mashquul buu ahaa sidaas darteed wuu imaani waaye. Therefore waxay la macno tahay sidaas darteed. kelimada kale waxaa waaye thus. He didn't work hard thus he was fired. يعني waxaa laga wadaa jumladda muusan shaqayn si adag sidaas darteed waa la eriyay. As a result يعني taasi waxay keentay ay la macno tahay. As a result he had to leave. taasi waxay keentay inuu baxo ay la macno tahay. ereyga kale waxaa waaye consequently. I have never been to China. Consequently, I know very little about it. weligay ma tegin China sidaas darteed wax yar ayaan ka aqaanaa. So waxaa waa ayadaba marka ay la macno tahay. أستفيد جملة She didn't have any money so she couldn't go with me. wax lacag ah ma haysan markaas ma i raaci karin ay la macno tahay. jumlada kale أستفيد I've paid for pills this month so I got nothing to worry about it. waxaa laga wadaa waxaan bixiyay faaturaha bishan sidaas darteed ma jirto wax aan ka welweli karo. So hadda waxay la macno tahay sidaas darteed mise markaas ay la macno tahay so. conjunctionka waxaa waaye condition conjunctions. in case midka koobaad waaye. in case jumlada أستفيرنا maybe you should come along in case I need help. waxaa laga yaabaa inaad isoo raacdo haddii aan u baahdo caawinaad haddii aan ay la macno tahay in case. time conjunctions aan aadno hadda first iyo thana jira. أستفيرنا jumlada first you should get things done then we can go out. يعني waxaa laga wadaa marka hore waa inaad wax qabataa markaas kadib waanu bixi doonaa ay la macno tahay. afterwards waxay la macno tahay kadib. jumlada waxaa waaye afterwards she was sorry for what she had said. يعني kabacdi kadib way ka xumaatay waxay ay tiri. midka kale waxaa waaye previously inta ugu badan waxaa ka maqli kartiin filayaasha مسلسلاتka waxay ku leeyihiin previously waxaasaa dhacay يعني xalqadii ka horeysay waxaasaa dhacay way kuu sheegayaan hadda kadib filimka xalqaday bilaawayaan.
previously waxaa laga wadaa wixii ka horreeyay. Asla fiirino jumladda. She had previously worked in television. يعني wixii ka horreeya shaqadii ka horreysay waxay ka shaqayn jirtay telefishinka ka shaqayn jirtay. Kelimada kale waxaa waaye prior to. Prior to waxay la macno tahay ka hor. Prior to living in Istanbul, we lived in Izmir for about 10 years. Ka hor intaan ku noolayn Istanbul waxaan ku noolayn Izmir ilaa 10 sano ay la macno tahay. Jumlada kale iska fiirino. He worked as a translator prior to becoming a teacher. يعني waxaa laga wadaa wuxuu ka shaqayni jiray tarjumaan ka hor intuusan noqon macallin. Videogeena intaasu ahaa waxaan rajaynayaa faa'iido ka hesheen darsigan iyo casharkan. Insha Allah is arag dambe cashar kale iyo darsi kale. Su'aalaha hadaa qabtiin please comment-ka ii soo qora and thanks for watching. Waad ku mahadsantihiin daawashada wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.